السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب سيدة شرفتي كرامتك قبل ما يكستاد دنيا كل نوشين سوى هذا مرة بعد مستحد بي برتقص دور سوقية ستيفني كان هذا ينو ولكن عبدولي واحد اللي مركز تي ميركس تي دنيا مشت كل نوشين بس هذا مرة بعد مستحد بقى انت أنا نقول أقول برنامج كأنه حكا عصني هذه عاد كل عصب تاي شران كان لها سبسكرايب ولايك تشير تنو وغبتي سان كوجو سوق برنامج واركتي وحي أن هدو هاينو هو يمادو قولي جاك يقوبان حاجة توشوا سوى هذا مرة بعد ما توحني هيا أوكي ساعة aad u naxdin badan weeye oo ka mid uun dhalinyaranimada ka mid ah arrinkaas wuxuu ka dhacay waddanka Jarmalku ka dhacay magaalo ka mid ah waddanka Jarmalku ka dhacay wiil Soomaaliyeed buu ku dhacay waxaana geystay gefkaas iyo qaladkan waxa geystay haween Soomaaliyeed baa geystay 10 hablood ama 10 haween ah oo Soomaaliyeed baa hal wiil wada dilay maxay gacanta ula tagay dhaawacyo badan u geystay sharafkiisa karaamkiisa wax yeelayay soo dhawaada mar labaad mar saddexaadba waxaad arki markaa waxay niga sheekay doonaa balse waxaan u dhacay iyo qaladkan cidii gashay sidii loo galay inaan kamid ah nimada Soomaaliyeed ayaa wuxuu ku guursaday waddanka Jarmalka gabadha markaa waxay ahayd gabadh dadkoodii reerkeedu soo qaadeen bay ahayd intaas oo meesha waxa joogtay hooyadeed laba hablood saddex hablood ay walaalayihiin hooyadeed iyo saddex hablood ay walaalayihiin iyo inanay walaalayihiin iyo aabaheed intaas joogtay wiilkeena intii uu guursaday muddo ay wada joogeen inantii uu xumeeyay inantii uu xumeeyay xumaanka kulay maxay tahay sharcigeed si waajibka ah buu yeeli waayay ama sida quruxda badneed ee maxay tahay uu u dhaqala habaan u dhaqanin marka waxay codsatay inantii inuu ninka warqadii ka qaadato warqadii inantii uu ku silciyay muddo ku haystay oo marka muddo badan ku silciyay markii dambe warqadii inantii uu siiyay inantii markuu warqadii saa ku siiyay reerkii warqadii inantii saa ku siiyay inantii saa ku dhamaadeen ayaa waxa jirtay ninku markuu gabadh furo waxa jirta gabadhaasina aynay degdeg nin u doonato ninkuna uu degdeg gabadh u doonto oo markaba ayaa laga hor dheereen la yiraahdo barnaamij ah oo Soomaalidu taqaanade maalinta waxa dhacday inantii Facebook kale samaysatay barnaamij kale samaysatay Facebook iyo barnaamij kale samaysatay sida ay ninkii ku soo xiriir geliso ay ninkii isku barto marka waxay doonaysaa ninkan siday gacan ugu dhigi lahayd waxay tahay mar labaad ay maxay tahay wax ugu geysan lahayd waa ninkii waxa weeye magaalo kale degan yahay gobol kale degan yahay waxa weeye markiiba ayadana heli mayso ama ku fakar mayso laakiin wax jeclaysa intay guri ku badlamayso inay ku disho halka Facebook bay kala sheegtay muddo 3 bilood ah wadaad bay fil kuma tagi jirtay xijaab bay xidhi jirtay sawir may diri jireen waxba may diri jireen hadalkeedana inan kale oo ay qoraal markay noqoto ma hadalka markay hadlaysana inan kale ay walaalayihiin oo hoos uga yaray ay ula jirtay maxay tahay afreer ula jirtay wadaad baan heena buuqa ma qaadi karayo oo maxay tahay ay ku yir karbaash jirto inantaas mar la hadli jirtay marayda la hadli jirtay qoraalkii kala hadli jirtay inantaas kana afkii kala hadli jirtay si xisaab saaw heed bay inantii kulmaan ay u diyaar garoobeen kulankoodii waxay ku qabsadeen magaalaan hayn oo dhexe oo inantan hablahan habaryarteed weerka digantay habaryarteedna waxa la nool oo ay habaryarteedna waxa haystaa 3 hablood kale waxa israacay 3dii ayada ay walaalaha haayeen iyo ayada 3dii hablood ay afroodaga haayeen 7 hooyadeed inantaa 8 iyo 2 hablood oo kale wajaara waxa lagu heshiiyay markuu guriga yimaado in casuumada u sameeyo maxay tahay cuntada yareen u karino kadib markaa ninka aynu gacan saarno waa mucjisooyinka ugu weyn ee qof bini'aadan ku dhici kara mar qof guri lagu casuumay oo loo tashadan xogay laakiin dalda sharci iyo shuruuc leh jooga inankii uu yimi wuxuu yimi maxay tahay gurigii uu yimi waxa ku tiri cidna soo kaxaysan laakiin inan kaliya soo kaxaystay saaxiib ahaayeen soo kaxaystay wala soo dhaweeyay cuntadii iyo wixii casuumadii baa loo sameeyay waxa weeyaan waa waxyaabaha aadka niyadaada markaad dhageysatid ama aad wixii maqashid ama aad aragtid aad niyadu ka jabayso weeyaan inankii marka cuntadii loo sameeyay hablihii ay maabtay habroodaga haayeen baa markaa casuumay iyaguna qolkay ku jiraan hablihii walaalaha ay ku jiraan ayaan inda shareer xiran markaa waxa la war inantan la hadli jiray aan isbaranay bay ku yiri kumi
inankii waa kuurideena inankii inantiidii ay wada hadli jireen meeda wayniya marsabale inantii markaa berigii hore u furay oo biyo sidata waxay sidataa caag ama baaqul qofba suliiq ama madibad weyn oo biyaa kulul bay sidataa way saabu shubto oo annagan bay ku tiri hoo kuwii kalena tibxawaashi waxayeen bay la boobeen dhammaantoodu iskugu tageen inankii waxaa laga jebiyey 11 meelood baa inanka ka jabay 11 meelood ayuu inanka ka jabay biyaa lagu shubay inankii kalena wuu baxsaday inankii kale booliska la hadlay booliskii baa meeshii yimi hablihii jeelkaa lagu wada guray xakabad iyo waxbaa la saaray waxay marka xidhan inantii ay markii hore ninka kala tageen iyo 3 hablood ay walaala ahaayeen ayaa marka xidhan xabsiga ku jira weli maxkamadina way socotaa darajadii koowaad maxkamadda la maray inankii nin dhakhtar ku yaalaa 11 meelood buu ka jabay waanu gubtay biyaa lagu shubay gubtay inanka waan la xiriiray oo anagu waan wada hadalay inanka in magaciisa magacaygana sheegin buu yiri laakiin waa wax jira reer Jarmal way wada og yihiin wax jira weeye marka arrintan doonay maanta in la wadaago maxkamaddana waxay soo saartay u dhaweyn la soo socodsiiyo maxkamaddu waxay soo saarto deertasan la soo socodsiinay maanta waa arrinta soo kordhay aad iyo aad u mahadsantihiin wixii kala soo kordhana weli socodsiin doona insha Allah aad u mahadsantihiin waxaan ku codsanahay hadda soo gaadhay darajada hadda soo gaadhay subscribe collect share tan ugu dhufo faafi gaarsii saaxiibkaaga la wadaaga asxaabtaada anaguna insha Allah bilbilah baarid wixii cusub ee kalaan hayno kula wadaagi doona subscribe taasana naga ilaaw insha Allah daadad baynu waslaan dhamaantiin